heestaasi ay sida wadajirka u qaadayeen labada fanaan ee Saciido Sheena iyo Maxamed Cabdi Fataax Weeru ay loogu talagalay xisbiga Tayo ayaa waxay qayb ka ahayd munaasabad lagu daafurayay garabka xisbiga Tayo oo ku yeelanaya waddanka Holland taasoo lagu qabtay magaalada xarunta siyaasadda ee dalka Netherland ee Hague. dadka ka soo qayb galay xafladaasi ayaa ka kala yimid gobolada dalka Netherland iyo halgamaa Cabdiqaadir Cali Bolo oo ka yimid waddanka UK. madasha ay xafladaasi ka dhaceysay dadka joogay waxa ka muuqatay taageero ay u ahayeen xisbiga Tayo ee dhawaan looga dhawaaqay waddanka Mareykanka iyadoo xisbiga Tayo hoggaankiisa guud loo doortay inay gudoomiye ka noqoto Titoreysa Maryan Qaasim. dadkii sidoo kale halkaasi ka soo qayb galay waxa ka mid ahaa fanaaniinta ay ka mid yihiin Xasan Diille Weeru iyo Saciido Sheena oo iyagu dhinaca fanka ku soo bandhigay taageeradooda xisbiga Tayo. dadweynaha halkaasi ka hadlay ayaa iyagu siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay aragtidooda ku aadan taageerada xisbiga Tayo waxay isku raaceen gabi ahaantoodaba in hamuun badan loo qabo inay hoggaanka mar kale ku soo noqdaan dhabaanba xubnaha ku jira xisbiga Tayo. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo isagoo ku sugan magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska kagana qayb galay isla xaflad kale oo lagu taageerayay xisbigan ayaa qadka taleefanka xafladan ka dhacday waddanka Holland kaga qayb galay. Tayo wuxuu ka dhashay kacdoonkii mudaahiraadyadii qayladii tabashadii tirada badnayd ee bulshada Soomaaliyeed meel walba la istaagtay ayuu ka dhashay boqolkiiba 30 baynu helay haddana Tayo haday timaado waxaynu helaynaa boqolkiiba 60 baynu caajisin ra'iisul wasaaraynu helaynaa madaxweyne ma doonaynaa anagu waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa in inta maamulka la waday guddigii iyo shacabka Soomaaliyeedba ay ii garteen maanta in hoggaanka aan qabto. dadka ayaa ku khasbay inay uu fikirkan shaqeeyo oo uu xisbigan dhasho. xisbigi mar hadduu iyaga u dhashay marka iyaga waxaan ugu baaqaynaa oo kaliya xisbigu ma shaqeynayo without supportiga dadka. Tayo kalmad ahaan waxay ka soo jeedaa macnaha wax qiimo leh ayay ka soo jeedaa quality ka soo jeedaa quality-na waa wax tar ah weeye sidaa darteed muhiimadda iyo ujeedada loogu doortay xisbigan Tayo waxa weeye wuxuu ku soo aaday marxalad taariikhi ah oo tayeysan ayuu ku soo aaday. ugu fiirsada warkayga u fiirsada ayaa arintii yani ummadii Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed ba xoogeeda gacanta ku haysa war gabdhaheena aynu gacanta midig iyo gacanta bidix ku qabano waxay Tayo ka dhalatay shaydaamayntaas dogomada ah oo dilaalinta inay ka daafacdo dalka bay Tayo ka dhalatay Iran isku xirnaanta waxay keenaysaa marka ninka banaanka jooga hataa in waddanka la geyn karo waxaan rabnaa Farmaajo inaan geeyno annagoo kacdoona waddankeena geeyno waa marka runtii uu sheego qurbaha waan ka daalnay gabdhaha walaalaheena way yiraahdeen mar walba waan daalnay. dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo isagu halkaasi ka hadlayay ayaa dadkii ka soo qayb galay xafladan uga mahad celiyay waqtigooda qaaliga iyo taageerada ay u hayeen xisbiga Tayo oo isagu ka mid yahay madaxdiisa waxaana hadaladiisi ka mid ahaa laakiin waxay ka soo bilaabatay ururka magaciisa iyo uu taagan yahay magaalada وصيام المشاهدين وكان واحد يغطيه وحاوة بيس عدالة مسلمان وكون خطين دونا تليبات يقول أن ذكا منه فإذن كأنه حي تنازل. ugu dambeyntiina hadalka ra'iisul wasaaraha kadib waxa mikrofoonka lagu soo wareejiyay mar kale halgamaaga Soomaaliyeed ee Ismaaciil Cabdiqaadir Cali Bolo iyo isagu xafladan uga yimid waddanka Ingiriiska kalamado dardaaran iyo taageerana u muujiyay xisbiga Tayo iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. السلام عليكم محمد
عبد السلام عليكم هذا رميش عن هذا وفي عنها آدي waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan shirkan ka qayb galo run ahaantii tayo wax weyn ayaa ay ka taraysaa dalka maxaa yeelay waxaan tayo lahayn ayaa 21 sano ku jirnay wax kastaba ha noqotee TSYL oo kale inay guntiga dhiish isaga dhigaan oo xisbigaani tayo ah inay xoogooda saar ummadda Soomaaliyeed waxaan baaq u soo jeedinayaa in tayo ay gacan iyo hoo iyo hiilbe inay siiyaan maadaama ay tahay aan rajaynayno tii badbaadinaya dalka ummadda Soomaaliyeed inay noqoto ayaa ilaahay ka rajaynaynaa ما شاء الله عبد الولي إبراهيم قريرة Universal TV هولن